Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow kanaalka dhakhtarkaaga. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar. Muuqaalkan waxaan kaga hadli rabaa drug administration oo ah meelaha dawada laga isticmaalo ama meelaha ay dawada jirka ka soo gasho. Si guud ahaan dawo waxaa laga isticmaali karaa 8 meelood oo kala duwan sida number 1 afka ama wax loo yaqaan oral. Afka waxaa laga isticmaali karaa dawooyin badan sida kaniiniyada iyo sharoobooyinka. Number 2 by injection oo ah in la isku daro. Number 3 sublingual oo ah in carabka la hoos geliyo. Inta badan waxaa loo isticmaalaa kaniiniyada loogu talagalay inuu jirka si degdeg ah u nuugo. Number 4 inay dawada noqoto rectally oo inta badan loo isticmaalo suppositiska oo inta badan waxaa loo isticmaalaa dawooyinka xanuun baabi'iyaasha. Number 5 ocular route oo ah in isha lagu shubo oo ah inta badan goojooyinka loo isticmaalo isha, ama sidoo kale otic route oo ah in dhagta lagu shubo oo ah goojooyinka loo isticmaalo dhagaha. Number 6 dawo waxaa laga isticmaali karaa nasal route oo ah in sanka lagu shubo. Number 7 dawo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in korka la marsado. Inta badan dawooyinka la marsado maqaarka waa dawooyinka ka hortaga allergiga. Ugu dambeyn number 8 inay dawada ay noqoto inhalation oo ah in hawo ahaan loo qaato. 8 meelood ee laga isticmaalo dawooyinka mid walba wuxuu leeyahay faa'iidooyin u gooni ah, mid walbana wuxuu leeyahay faa'iido darro u gooni ah. Haddaba aan u nimaano 6 rights oo ah si dawada ay si saxan u shaqeyso waxaa loo baahan yahay 6 rights ama 6 tallaabo oo saxan ayaa loo baahan yahay. Number 1 right drug oo ah dawo saxan. Dawo sax ah in la siiyo bukaanka waxay ka caawinaysaa inuu bukaanku u dareemo firfircooni badan, maxaa yeelay dawo sax ah ayaa ah midka uu qofku ku dareemi karo caafimaad sax ah. Number 2 right dose oo ah qiyaas sax ah. Qiyaas sax ah waxaa la siin karaa bukaanka markii la hubiyo miisaankiisa iyo da'diisa si loo ogaado inta uu dawada u xamil karo qofka. Number 3 right patient oo ah bukaan sax ah. Bukaan sax ah si aad dawada u siiso hubi bukaanka magaciisa inuu yahay magaca saxda ah. Waa inaad isku hubisid bukaanka magaciisa, dawada loo qoray iyo meesha laga isticmaalo ay dawada. Number 4 right route oo ah meel saxan in aad ka siisid dawada. Meel sax ah in laga siiyo dawada bukaanka. Tusaale haddii bukaanka loo soo qoray dawo laga isticmaalo lahay muruqa oo aad ka siiso qofka xididka, waxaa ka imaan kara dhibaatooyin kala duwan sida qofka inuu dhinto ama qofka inuu noqdo partial paralysis oo qayb ka mid ah naafoodo. Number 5 right time in qofka siisay waqtigii ku habboonay ama waqtigii saxda ah dawada. Waa muhiim in qofka siisay waqtigii ugu habboonay. Number 6 right administration in si saxan loo maamulo dawada. Tusaale in la dhigo dawada meel ku habboon oo ciyaalka laga fogeeyo. Sidoo kale waxaa ka mid ah inaad dhigtid tusaale ahaan dawooyinka qaar haddaad dhigtid meel kulul waxaa laga yaabaa inay tayada dawada hoos u dhacdo ama ay dawadaas bukaanka wax ay ka tari wayso. Halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa muuqaalka. Fadlan subscribe saar channelka si aad ula socotid casharo iyo talooyin caafimaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.